wariyayaasha iyo waliba dhammaan saxaafadda dadka af Soomaaliga ku hadla ee ka hawlgala wadanka Norway ayaan loo kala harin inay baroor diiq iyo tacsiba ay u sameeyeen Allah u naxariistee wariye Cabdisalaam Sheekh Xasan Xiis oo ka tirsanaa wariyayaasha Home Cable TV ee ka hawlgala magaalada Muqdisho. bahda saxaafadda ee ka hawlgala wadanka Norway ayaa runtii wax laga xumaada ku tilmaamay in dil loo geysto wariye Soomaaliyeed oo shaqadiisa si xaq ah u gudanayay. wariyayaashan ayaa halkan waxay dhammaantoodba si isku duuban ay tacsi ugu direen qoyskii iyo carruurtii iyo waliba qaraabadii uga geeriyooday Allah u naxariistay wariye Cabdisalaam Sheekh Xasan Xiis. haddaba suxufiyiintan ayaa halkan waxay ka soo jeediyeen in gacan bir ah lagu soo qabto ciddii ka dambeysay dilka Allah u naxariistay wariye Cabdisalaam Sheekh Xasan Xiis, waxaana wariyayaasha hadaladoodii ka mid ahaa. bismillaahi raxmaani raxiim. dhammaan suxufiyiinta ku dhaqan magaalada Oslo gaar ahaan dalka Norway marka hore waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin sida qeyrada leh kartida leh aad uga soo qayb gasheen maanta aan u muujinaysiin inaad aad uga xun tihiin dilka loo geysanayo wariyaha. sidaan ka warqabno wariyuhu waxaa lagu tiriyaa waa qof aan ku jirin birmigeydada dadka ayuu ku jiraa, waana qof aan xaq u lahayn maanta inuu gacan ama xaqdaro ama kasbi dilo. wariye Cabdisalaam Xiis wuxuu ka tirsanaa TV-ga caalamiga Home Cable TV xaruntiisa magaalada Muqdisho. Xiis in muddo wuxuu ka shaqeynayay saxaafadda, wuxuu nin karti leh. Home Cable ka horna Xiis saxaafadda uu ku jiray, wuxuu ahaa nin markasta ka muuqda ama ka carbaaban suxufiyiinta ka shaqeynaysa magaalada Muqdisho. Xiis wuxuu u dhabar adeegay oo kartidiisa iyo aqoontiisa inta ugu dhabar adeegay inuu ku shaqeeyo magaalada Muqdisho. aad ogtihiin 2006 ilaa maanta 2011 in lagu dilay wariyaal gaaray ilaa 25 wariye oo iskugu jira agaasimayaal, tafatiriyaal, barnaamij soo saarayaal, iskugu jira qoraalayaal, dhinac kasta iskugu jira. Cabdisalaam Xiis kaamirahaan ka sokow ama inuu mas'uuliyadda qaado ka sokow xirfadiisa gaareed wuxuu ahaa barnaamij soo saaran uu ahaa dhinaca maqaalada ama tafatirna uu ahaa. Cabdisalaam Xiis san ka warqabno waxaa dishay gacanka xaqda. waxaan la dilay maalintii Isniintii magaalada Muqdisho ayaa lagu dilay. waxaan tacsiideen u wada direynaa dhammaanteen si kastoo wariye kastoo maanta Soomaaliya ama wariye kastoo qof kastoo wariyaa ugu qiirooday inuu wariyahaas tacsi u diro aan ahayn oo kaliya Soomaalida kaliya xataa bal ay u direen dad ajaaniba ay muujiyeen inay ku xun yihiin. annagana hadda magaalada Oslo dadka degan wariyaasha deganna ugu xunna annagana inaan tacsi u dirno wariyahaas. gaar ahaan haddaan ku hadlo magaca TV-ga Home Cable TV oo xaruntiisa aan fadhiyo magaalada Oslo, maadaama Xiis ahaa qof igala mid ah igala shaqeynayay TV-ga gaar ahaan si dhaw ay ii taabanaysaa Xiis. waxaa si dhaw kale ii sii taabanaya anigoo ka warqaba xaaladda adag ee magaalada Muqdisho warnimada lagaga shaqeeyo, anigoo ka mid ah dadkii ka soo shaqeeyay. waxaan ogahay oo dareensanahay qofkii Muqdisho ka shaqeeya warnimo maanta ku shaqeeya xaaladdan la joogo inuu qofkaas mudan yahay tacsi in loo diro mudan yahay maahane uu mudan yahay sanad kastoo maanta oo kala in baroor diiq loo sameeyo sida lagu sameeyo Mahad Ahmed Cilmi, Sharmaake iyo wariyaal kale ka badan. sidaan la socono wariyaal ka dhow 100 ayaa magaalada Muqdisho ka soo ambabaxday maanta ku nool qurbaha. dadkaas maanta waxay wax ugu faa'iideyn lahaayeen dadkooda gudaha ku jira. saxaafaddu waa aalad isku gudbisa bulshada, waa dadka isku xirta bulshada. saxaafaddu waa soo saaraha qofka ra'yigiisa qarsoonaa gurigiisa la fadhiyay inay banaanka u soo gudbiso, inay tusto qofka inuu ra'yigiisa leeyahay, inuu ka hadli karo. Xiis wuxuu ka shaqeynayay saxaafadda, wuxuu u shaqeynayay bulshada Soomaaliyeed, wuxuu u shaqeynayay sida uu bulshadiisa xaqiiqada dhabta ah ee ka jirta magaalada Muqdisho uu ugu soo gudbin lahaa. waxaa aaminsanahay Xiis in loo dilo xaqiiqadu magaalada Muqdisho ka soo gudbiyo iyo masawirada naxtinta leh oo ka qaada magaalada Muqdisho inuuna qaadin in loo dilay. saxaafadda magaalada Muqdisho ka shaqeysa waxaa ka furan sidaan qiyaasiyo 12 raadiyo ayaa ka furan. si kasta waa isku gudayay saxaafadda in la caburiyo magaalada Muqdisho oo wariyaashu ka ambabaxaan sida u soo ambabaxeen wariyaal badan. ilaa hadda way suurtoglaado wariyaashu wali way joogaan magaalada Muqdisho wayna ku shaqeeyaan. waxaan fariin u diri lahaa gaar ahaan anigoo ku hadlaya saxafiyiinta magaalada Oslo
wariyaasha ku noqon magaalada muqdisho ee xaaladda adag ku shaqeynaya inaynan fiirin dilkaas loo geeyay inaynan argagax ku abuurin inaynan naxtin ku abuurin inay shaqeeyaan si geesnimona u shaqeeyaan waxtarna ugu shaqeeyaan magaalada muqdisho inaynan kasoo cararin dilka loo geysta xiis waxaan ka codsan lahaa dowladda kumeel gaarka ee soomaaliya xiis meesha lagu dilay waa meesha xukumaysa dowladda kumeel gaarka ee soomaaliya sida warar hoose lagu soo gaaraan waxaa la sheegayaa in dad la tuunsiyan lahay waxaan ka codsan lahaa dowladda kumeel gaarka ee soomaaliya iyo maamul gobolka banaadir intaba inay gacan ku dhiglihii xiis dilay lasoo qabto cadaaladda lasoo horgeeyo waa midda keliya annagana farxagelin kartaa wariyaha magaalada muqdisho ku noolna oo shaqadiisa ku wadi karo waana dareemayaa dhammaantiin inaad saas tihiin aan saas u wada qeyroodootiin dad badan ayaa iga dambeeya oo igana wariyeysan muddana kusoo jeeda saxaafadda ayakaan hadal ku dayn doonaa waana mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa nisaahiba ismaan oo ka mid ah suxufiyiinta soomaaliyeed ee norway gaar ahaan maamulka golis media group halkan waxaanu taxsi uga diraynaa cabdisalaan sheekh xasan xiis oo ku geeriyooday magaalada muqdisho gacan ka xaqdarina ay dishay waxaanu ilaahay uga baryaynaa eheladii iyo faamiligii uu ka baxay in ilaahay samriya iimaan ka siiyo iyo dhammaan suxufiyiinta soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan gaar ahaan kuwii uu la shaqaynayay ee arkay dhibaatadu waxa ay tahay waxa aanu kale oo halkan uga taxsiyeynaynaa faamiligii iyo carruurtii yarayd ee uu ka baxay ee maanta aabal-aantu ay ku dhacday aada iyo aad ayaan uga xunnahay geeridu waa waxaqa laakiin haddana waxaa daran sida foosha xun ee uu dhintay inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun ilaahay jannadii ha ka waraabiyo ayaan leenahay kolley rag horena waa hadleen arrintaan isugu nimi halkan waa midaan ku muujinayno dhacdadii geeridii dilkii loo geystay cabdisalaan xiis oo weliya ka tirsan ahaa kanaalka la yidhaahdo hoose t v waa mid runtii aanu ka xunnahay oo aanu muujinayno anagoo joogna qaaradda yurub dalka norway khaas ahaan na taabatay waana mid taabatay wariyaasha soomaalida ee afka soomaaliga ku hadla meel kastoo ay joogaan tan waxay uga duwan tahay dilkii hore saan dareemayo wariyaal badan iyo maamul badan iyo mas-uuliyiin badan oo warbaahinta ayaa muqdisho lagu dilay waan ognahay waxaan dareemaynaa keliya tan waxay uga duwan tahay waa xilligii aanu raadinaynay nabadda waa xilligii marka sida foosha xun leh nin wata dharka ciidanka soomaaliya ee dowladda ah la yidhaahdo wuxuu ku dilay nin wariye ah war soo tabinayay wax runtii aada looga xumaado sidii saaxiibkay oo kale anna waxaan leeyahay maamulka gobolka banaadir iyo dowladduba waxaanu ka codsanaynaa soomaali ahaan qurba joog ahaan qaxooti ahaan meel kastoo aan joogno in arrintaas la xaliyo taasina waxay noqonaysaa midna farxad gelisa naguna dhiiri gelisa inaan leenahay dal nabad noqday dibna loogu soo noqon karo waana muhiim tan kaloo aan rabay inaan ka hadlo waxay tahay maamulada iyo telefishinada kala duwan waxaanu aragnay dilkan loo geystay cabdisalaan inuu yahay mid lamida kuwii hore laakiin ka duwan kacdoon waxaanu u qasbay anagoo norway joognay iyo oslo inaanu ka fariisano u tacsiyeyno carruurtii iyo eheladii uu ka geeriyooday iyo qaybaha kala duwan ee warbaahintu waxay tahay mid maanta aanu dareemayno in ay u kaceen qaybta meediyada hoggaanka ah for example kanaalka uu ka shaqaynayay inay sameeyeen abaabul badan warbixin badan tacsiib badan marka waxaan ka codsanayaa maamulada telefishinada iska leh iyo dadka mas-uuliyiinta ka ah inay ka warhayaan dadka muqdisho ku jira ee dagaalka wada ee dagaalka kula jira inay meediyadii warbixinta ay kasoo saaraan muqdisho usoo gudbiyaan dadkooda inay ehel u ahaadaan kana warhayaan sida looga warhayo cabdisalaam ay u dhacdo mid kastoo warbixin kasoo diraya muqdisho iyo meel kasta in loo ogaado sidaas waad mahadsantihiin inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun inna ilayhi raajicuun cabdiwahaab maxamed ibraahim waxaan ka mid ahay howlwadeennada shabakada doka herar anigoo ku hadlaya afkayga iyo afka dhammaan inta ka howlgasha shabakada toga herar waxaan tacsi u dirayaan eheladii iyo qaraabadii iyo dhammaan bahweynta saxaafadda dadka af soomaaliga ku hadla geeridii naxdinta lahayd ee ku timid wariye cabdisalaan sheekh xasan xiis sida runtiia kolley arrintaasi arrin waxay ahayd gardarre lagu dilay sidoo kale waxaan leeyahay waa in kanidhimaya kuwa hadhay la daryeelaa oo la ilaaliya fariintaasi waa mid aan u diraayo dhammaan dadka ka howlgala ama ka mas-uulka ah warbaahinta kala duwan ee ka howlgasha daafaha caalamka tacsidaa
kadambow laba eray ayaan ku darsanayaa kolley waxa weeyaan ninkani dhimay allah u naxariisto waxaa jirta agoontii uu ka tegey badanaa dadku inta uu meydku sii qoyan yahay ayuunbay hadal hayaan agoonta iyo hadalhayntiisa laakiin midka aan leeyahay ama homekay bilka uu ka hawlgalayay ama dhammaan intii saxaafadda ku jirta ee imaka nool waxaan leeyahay ha laga warhayo agoontii uu ka tegay ninkaasi oo yaan sidaa lagu ilaawin waxay noqonaysaa haddii sidaa lagu ilaawo in kuwa dambana ay iskagaba tagaan iskaga hajiraan oy aanay wax dambaba maadaama ay tahay saxaafaddu tii midaan laga maarmayn oo u gudbinaysa dadka waxa maxay had iyo jeer dhaca markaa taa waxaan aada ugu adkeynayaa in laga warhayo reerkii uu ka tegay ereyga labaad ee aan meesha ka odhanayaa waxa weeyaan ninkani wuxuu ku dhintay meeshii la bidayay inay tahay ammaan oo ah meeshii uu ka jiray maamulkii dowladdan uu hogaaminayo sheekh shariif waxaana taa kasii daran oo laleeyahay ninka dilay direyskii dowladda ayuu xidhnaa oo dee ama askari ha ahaada kamida ama dee nin kaloo dabad soo xidhay direyskooda ha ahaado waxaan leeyahay dowladda inaydaan arrintaa dhayarsan ee aad ka daba tagtaan haddayd ka daba tegi weydaan idinka laftigiinu meela codkiina marsataan heli maysaan mar dhow sidaa daraaddeed waxaan jecelahay in aa gacan birle kusoo qabataan ciddii arrinta ka dambeysay iyo ciddii dishayda mar labaad waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun gacan ka daran ayaa dishay waxaan si gaara u tacsiyeynayaa ehladii iyo xaaskii iyo carruurtii uu ka tegay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun geeriduna waa xaq waa sidaa ay sheegeen walaalaha meesha ka hadlay waxaanna u darayaa tacsideeda waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay samri iyo madax ka siiyo ummadda soomaaliyeed gaar ahaan qoyskii uu ka dhintay carruurtiisii iyo xaaskiisii naf kastana waa dhimanaysaa oo halkaa unbay u socotaa laakiinse waxa aan adaga xunnahay gacan ka xaqdaran ayaa dishay ninka wariye ah ee muxuu ahaa barnaamijyada ku jira waxaan leenahay oo ugu baaqaynaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed ama shacabka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa xamar ku nool waxaan leeyahay wariyaashu waxa weeyaan kuwa u hiiliya ama had iyo goor garab taagan shacabka dhibaataysan ee ku nool magaalada muqdisho oo kasoo tabiya hadba dhibaatada soo gaarta marka waxaan leeyahay dadkii dhibaatadiina soo gudbinayay oo idinla ahaa garabka haddii maalin kasta hortiina lagu laayo waa wax aada iyo aada u murugo badan oo aada u xanuun badan waxaan leeyahay mar labaad ku celinayaa inay shacabka muqdisho ay garab istaagaan bahda saxaafadda ee magaalada muqdisho ku nool oo iyagu ah kuwa had iyo goor garabka u ah dadka shacabka soomaaliyeed ee muqdisho ku nool ama ku noolba soomaaliya guud ahaanba waxaana leeyahay mar kale inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun samri iimaan allah ka siiyo dhammaan ummadda soomaaliyeed wariyaha cabdisalaan sheekh xasan xiis الله وإنا إليه راجعون أنا قام محمد علي عيا كان من بعض الصحافة مجال أوسلو وحنا نتعصب قدر وريا عبد السلام شيخ حسن حيس وكم ذا بعض هون كيبل تي في كان من ذا وريا شو فرعونية كهول قال مجال المقدس وقتين حاضر كا يعني قاعد كذا قدر إنه يكون ديش مجال المقدس سوى كهول جرا من ديس صحافة نمو حنلاقينا هاي مملكة مجال المقدس سدا أي uga hawlgaleen ay usoo qabteen ninka lagu tuhunsan yahay inuu yahay dadkii ka dambeeyay hawshaas inay noqoto mid meel la dhigo oo la hubsado qofka dilka geystay si ay saxaafadda magaalada muqdisho iyo guud ahaan soomaaliyaba ay noqoto mid usii dardar gasha oo u shaqeysa shacabka soomaaliyeed waxaan ogsoonahay wariyaasha soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho inay si karti leh uga qayb qaateen iyaga oo ilaa imika calaamado u khaas ah oo ay ugu tacsiyeynayaan ku xidhay madaxa marooyin cascas oo ay inta ay mihnadooda saxaafadeed ku jiraan ka wada magaalada muqdisho waxaan leenahay dhammaan saxaafadda caalamkana ee soomaaliyeed iyo caalamkuba waxay si kastaba u garab taagan tahay dhammaan wariyaasha dhibaatada iyo rafaadka ku hoos jira ee kasoo gudbiya wararkooda iyaga oo shaqadooda gudanaya lana kulma tacadiga kala duwan in laga daayo maamulka dowladda soomaaliyana ay noqoto mid dhowrta qowlka saxaafadda maadaama ay tahay tacaalamka ku xidhaysa magaalada muqdisho ee mugdiga ku jirta waxaan mar labaad leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun magacaygu waa iftaax maxamed aadan midnimo waxaana ka tirsanahay suxufiyiinta magaalada oslo gaar ahaan waddanka norway allah u naxariista ninkan wariyaha ee la dilay cabdisalaan sheekh xasan xiis intuu ka tegayna samir iyo allah ka siiyo dhowr arrimood ayaan rabay inaan ka hadlo maadaama tacsidaan la dirayo midda koowaad waxaa weeye horta dowladda iyo dadka maamulka ugu sarreeyo
dadka maamulka ugu sarreeya waxaan ka codsanayaa in ninkii dilay dilka geystay inay soo qabtaan ma aha in la dhaha qof tuhun ah ama qof la dhahay waa laga sheekaysayaa maaha waxaan dilka loo geystay wariyahan qaaliga ah ee ka howlgala tv-ga caalamiga ah ee homecare tv inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqatul mawt thumma ilayna turjacuun wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ugu horeyn waxaan u leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. marka ugu horeysa waxaan mahad gaar u celinayaa walaalahayga soo qaban qaabiyay munaasabadan aan ugu baroordiiqayno wariye marxuum Cabdisalaan Xaaji Xasan Xiis oo markaasi bilowgii bishan gacanta xaq daran ay ku dishay magaalada Muqdisho. wariye marxuum Cabdisalaan Xaaji Xasan Xiis sidii horeba naloo ku sheegay wuxuu ka tirsanaa TV-ga Home Cable oo markaasi isagu ka howlgelayay qaybta ka howlgelaysa magaalada Muqdisho. wuxuu ahaa wariye usoo banbaxay inuu xaqiiqda bulshadiisa usoo bandhigo caalamka iyo goobaha kale oo aanay markaas u sugnayn. wuxuuna ahaa nin ku adag shaqadiisa. runtii wuxuu ahaa nin bulsho ah oo u firfircoon sida shaqada saxaafinimada loo qabto. wariye marxuum Cabdisalaan Xaaji Xasan waxa uu ka howlgelayay si gaar ah magaalada Muqdisho gaar ahaan goobta ay markaasi gacanta ku haysay dowladda federaalka. munaasabadan marka aan ugu baroordiiqayno waxa meesha ka dhacday waxay ahayd in aan lagu tuhmayo nin gacan ka xaq daran markaasi inay dishay. waxyaabo badanna way ka soo baxayaan sida saxaafadda lagu hayo. hase ahaatee waxay taasi muujisay dadaalka ay saxaafaddu samaynayso oo looga jeedo in ay suxufiyiinta laftigooda xaajadani ay ku soo kordhisay inay isku xirmaan. taas oo kaliftay in goobo badan oo aad u balbalaaran markaa loogu baroordiiqo loona sheego caalamka iyo Soomaalida iyo kuwa suxufiyiinta isku daya inay caburiyaanba in arrintaasi in badan aanay sii jiri karin. sidaa darteed haddaanu nahay saxaafiyiinta markaa ama suxufiyiinta markaasi ka howlgala dalka Norway gaar ahaan magaalada Oslo yaanu waxaanu laftigayo ka qayb qaadanaynaa baroordiiqda markaa loo sameynayo wariye Cabdisalaan Xaaji Xasan Xiis. waxaan si isku duubni ah tacsi ugu diraynaa qoyskii qaraabadii eheladii carruurtiisii iyo asxaabtii saxaafiyiinta ahaa ee uu ka baxay. waxaanu leenahay jannadii firdaws Allah ka waraabiyo. waxa kale oo aan jeclahay in aan fariin yar halkan ka soo jeediyo. taasi waxay tahay taariikhii sida hadda ka hor lagu sheegay suxufiyiin badan ayaa Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho aad ugu dayacan. in badan baa lagu dilay, in badan baa nafsadoodii iyo xaasaskoodii iyo carruurtoodii ku curyaamay dhibaato ka soo gaartay. inahaas oo dhanna waxay u socdeen in xaqiiqada bal ka jirta meeshaas in la soo bandhigo. marka waanu dareemi karnaa in xaajadu ay tahay laba ciidan oo iska soo horjeedo waxa sheegin iyo waxbaan sheegaya waa la isku qaban karaa haddii marka aanay jirin dawlad xoog leh ama maamul xoog leh oo markaas xaqa u heeliya oo suxufiyiinta jecel inay soo gudbiyaan xaqiiqada gacan siisa way dhacaysaa intaas iyo in ka badan. marka waxaan aad iyo aad saxafi ahaan ugu badinayaa iyadoo oo looga jeedo in bal intii tagtay Allah u naxariisto bal inta joogta si loo badbaadiyo in markaas la helo isku xirnaantu qayb bay ka tahay badbaadada. sababtoo ah haddii la iska warqabo oo la is og yahay oo la isku xiriirsan yahay marka fursadan waxaan uga faa'iideysanayaa inaan ugu yeero suxufiyiinta laftigooda intay israadsadaan inay isku xirmaan. sababtoo ah isku sibaa loo wada dilaya, isku sibaa loo eedeynaya, isku si waxbayna u go'ayn. sidaa darteed maadaama aynu isku doon saaranahay waxay igula jirtaa in xal ay ka tahay iska warqabkeenu inuu xal ka yahay arrinta ku lug leh in aynu cadowga iska ilaalino. haddiiba ay wax dhacaanna la isaga heeliyo ubadkaagii iyo ooridaadii iyo reerkaagii laga sii warqabi karo. sidaa darteed
saxafiyiinta ku dhaqan dalka Norway ayaga oo ka murugaysan ayay arrintaas baroor diiqdan maanta u sameeyeen mar kastana waanu sameynaynaa wariye kastana waxaanu kula xiriireynaa in aanu ogaano goobta iyo meesha uu joogo si markaasi wixii wanaag ana loogu isugu dhiirigeliyo wixii xumaan ahna la isaga qabto wixii kale oo cadow oo dhibaatooyinka noocaas ka imaanayaan gacan la isaga siiyo mar kale ayaan halkan kacsideeda gaarka uga dirayaa qoyskii qaraabadii iyo eheladii asxaabtii uu ka baxay marxuum cabdisalaam xaaji xasan xiis waxaana leeyahay jannadii firdaws Allah ka waraabiyo intii uu ka tagayna samar iyo iimaan Allah ka siiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi raxmaani raxiim waxaanu anagoo bahdii warbaahinta ee ku noolay dalka Norway waxaanu maanta u diraynaa tacsi anagoo ka murugaysan cabdisalaam sheekh xasan xiis oo gacan ka xaqdaran ku dishay magaalada Muqdisho waxa kale oo aanu ka sii tacsiyadeynaa bahda Home Cable TV oo iyaguna lumiyay wariye caan ahaa oo uga soo warrami jiray magaalada Muqdisho guud ahaan dadka Soomaaliyeed waxaanu ka codsanaynaa inay xuquuqda suxufiga in aanay ku tacaddayn ciddii falkan geysatayna in la soo qabto waxa kale oo aanu ka codsanaynaa suxufigu qalin buu sitaa ee qori ma sito marka in la dhowro xuquuqda qofka suxufiga nabadgelyadiisa in la ilaaliyo ayaanu dhammaan ummadda Soomaaliyeed ka codsanaynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعبد الرزاق عثمان فضل وحن كسعدا شبكة الرماس نيوز وحرنتي دوتها هاي مقالة ugu dambeyntii saxufiyiinta ka howlgala waddanka Norway ayaa dhammaantood waxay isku afgarteen inaan la ilaawin qoyskii uu ka geeriyooday Allah u naxariistay wariye Cabdisalaam Xiis iyo waliba wariyaasha kale oo iyaguna jirdilka iyo cagajugleynta loogu hayo waddanka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho Mahad Abdulle, Home Cable Television, Oslo, Norway.